xaaladda degmadu aad bay fiican tahay roob barwaaqo noo tahay wadankuna waa caadi bal xildhibaan ka waran hawl maalmeedka dawladda hoose ee Boorama hawl maalmeedka hawl socotaa ma jirto haye maxayna u socon waxay u socon wax fulin leeyahay meesha ka shaqeysa ma jirto haye hal fadhi ma jiro xildhibaan shaqeeya ma jiro maayar shaqeeya ma jiro gudoomiye ku-xigeen shaqeeya ma jiro waa la isku wada dulduuntay meeshan haye ilaahay baa maqan kolkaas wax looga qaban karaa bay kula tahay idin xildhibaanadii gurihiina deegaanka yahay looga qaban karayaa saaxiib annagoo qasab ku fadhiisano maayar gacawna degdeg toddobaadkan gudihiisa mooshinka yagiina wuu soo socdaa wax walba way isbedelayaan sidii caadiga noqonaya xildhibaan walba shaqadiisa uu ku foofi doonaa fulintu shaqadeedii ku foofi doontaa hayaa shaqeeya maanta meesha miisaaniyaddii ma ansixiseen golaha deegaanka Boorama oo ku shaqaynayay muddada 2015 ahayd ee sanadlaha wax miisaaniyadoo meeshan aan ognahay ma jirto ilaa imisa kala fadhi baad fadhiisateen ma jirto kala fadhi saddex kala fadhi baa sheegay bariga horis kolka maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda iyo dadweynaha iyo cid ay khusayso arrimahan xukuumaddu way iska og tahay isbedelkuna uu dhacayo sar hore u sheegay waxaan hore ugu sheegay dadweynaha inuu isbedel dhacayo anigu tiin baan wali haystaa xildhibaanadayadii 16 wali waa isku xidhannahay isbedelkayga uu dhici doonaa toddobaad ama laba toddobaad hana laga warsigo isbedel degdeg ah dhacayo meesha oo ilaahay uu wado maanta awliyada wadaba isbedelka maana ku leeyahay wariyaad awliyada wada maanta wayna dhacaysaa haddii aad wax iga weydiisay habsami socodka dawladda hoose runtii wax loo kala aad iyo aad u fiican tahay waxaase gaabis iyo mataqaanaa ku haya cadaadis weyn maayar ku-xigeenka oo loo magacaabo mataqaanaa isagoo matala marka uu maqan yahay maayarku isagoo matala meesha oo runtii la daadegay kuna keenay mataqaanaa barakshar oo joojiyey habsamo socodkii ay lahayd mataqaanaa dawladda hoose taasoo ay ka mid yihiin inta badan ka duwan lagu faanaayay ee mataqaanaa dawladda hoose waxa weeyaan waa faylasha meel ka soo galaan sida in faylasha oo kale cashuuraadka iyo wax lamida intii oo dhanba waxa kaga yimid dadkii oo ay ka cabanayaan oo mudooyinka u dambeeyay soo baxaya in ay cadaadis weyn oo saaray oo qaar ku dadka oo kaba jaxjaxiya in dokumentiyadii ay wateen marka waxaanu leenahay oo ku baaqaynaa mataqaanaa xildhibaanada in ay hawshaasi si degdeg ah u qabtaan xildhibaan kala fadhiyadini goorma ma ansixiseen miisaaniyaddii sanadka 2015 maxaad soo ansixin weydeen hadayna jirin waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro miisaaniyaddii marka uu bilaabo fadhigayga u horeeya inaanu ansixino laakiin oo reeri wali wax fadhiyo deeno aan la qabsado ma jirto oo aan fadhiisanay waxaan rajaynaynaa fadhigayga u horeeya inaanu ku ansixino miisaaniyadda gudoomiyaha degmada waxaanu leenahay si aan miisaaniyadda aanu ansixino waa inaad qabataa fadhiga